Kalluumaysatada Kenyaanka ah ee ku dhaqan agagaarka harada Mangingo ee ismaamulka Migori ee xadka la wadaagta dalka Uganda waxay aad u jeediyeen ciidamada ammaanka dalkaasi oo xanibaad saaray hawlihii kalluumaysiga dadkaasi. Dowladda waddanka Uganda ayaa maalin ka hor waxay ciidamadeeda amniga soo dhoobtay harada Mangingo oo ah dhulka ay ku muransan yihiin dowladaha Kenya iyo Uganda walow ay si rasmi ah u degan yihiin muwaadiniinta u dhalatay dalka Kenya. Guddiga ay ku midaysan yihiin kalluumaysatada Kenya waxa ay sheegeen in markii hore ay cabsi gelin kala kulmi jireen ciidamada booliiska waddanka Uganda balse ay kordhiyeen xariga iyo jirdilka ay u geystaan dadka ka kalluumaysta haradaasi. Shacabka ku nool harada Migori waxa ay ku eedeeyeen dowladda Kenya in aysan ka jawaabin dhibaatooyinka ay ku hayaan booliiska Uganda. Kenya waxaa sanadkan ku soo fururmay qulqulatooyin la xiriira dhinaca xuduudaha taasi oo ay kala kulmayso dalalka ay la tahay deriska waxayna si weyn shaki uga qabtaa in Soomaaliya ay goosatay qayb muhiim ah oo ka mid ah shidaalka ceegaaga badeeda. Arrintan waxa ay soo shaacbaxday kadib markii dowladda Kenya ay xiriirka dhinaca diblomaasiyadda ay u jartay dowladda federaalka ee Soomaaliya kadib markii ay shaki weyn ka qaaday in xirmooyinka shidaalka ee Soomaaliya ay ku soo bandhigtay London ay qayb ka ahayd badda Kenya. Dowladda Kenya ayaa waxa ay sheegtay in aysan ogolaan doonin marnaba in dowladda Soomaaliya ay biic geyso shidaalkeeda sida ay warka u dhigtay. Dowladda federaalka ee Soomaaliya oo arrintaasi war ka soo saartay waxa ay sheegtay in Soomaaliya aysan ku xadgudbin xuduudka lagu muransan yahay taasi oo dacwadeeda ay hortaalo maxkamadda dambiyada adduunka ee ICJ.